በክልሉ ሚሊሻና የመከላከያ ሰራዊት አባላት የሚፈጸመው ጥቃት እየጨመረ መምጣቱን በአካባቢው ከሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የሚደርሱ መረጃዎች ያመለክታሉ። የምትመለከቱት አጭር ቪዲዮ በክልል ውስጥ የሚፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰት አሁንም ተባብሶ መቀጠሉን ለማሳየት የመከላከያ አባላት በሞባይል ቀርጸው ለኢሳት የላኩት ነው። እነዚህ ምንጮች እንደሚሉት የቻይና ኩባንያዎች በአካባቢው ለሚያደርጉት የነዳጅ ፍለጋ እንዲያግዝ ተብሎ በኢትዮጵያ መንግስት በሚሰራው የመንገድ ግንባታ በርካታ ነዋሪዎች ቤቶቻቸው ፈርሶባቸዋል። ነዋሪዎቹ ካሳ እንዲሰጣቸው በተደጋጋሚ ሲጠይቁ ቢቆዩም በመንግስት በኩል የሚሰጠው መልስ ግን አሁንም አሉታዊ ነው። በአካባቢው የሚደረገውን ነዳጅ ፍለጋ የሚቃወሙ የኦብነግ አባላት ወደ ቀብሪ ዳህር አካባቢ ያሉ ወጣቶችን እየቀሰቀሱ መሆኑን መረጃ የደረሳቸው የመከላከያ ሰራዊት አባላት በወሰዱት እርምጃ የተወሰኑ የኦብነግ አባላትና ግንኙነት አላቸው የተባሉ ወጣቶች እየተያዙ መገደላቸውን የዓይን ምስክሮች ይገልጻሉ። አምጡ በላቸው እዛ ጋር ማአት አለ አይደል እንዴ? noloshayda balse waxaa dhacda inaan marar badan ka dhex milicsado dhacdooyin aan sinaba uga tirtirmi karin dareenkayga oo ama doogooni ay igu reebay ama dareen farxadeed igaga tegay. maanta waxaa niyaddayda calwiyey oo dareenkayga sidii magnetka u soo jiitay 15 Noofembar. waa maalin aan hubo in xusuusteeda uu qof kasta ogaadenya u dhashay ka argagixi oo ka murugoon, marna uu ka weyrixi oo naftiisa wacad kula geli in uu u aaro waddaniga xaqdarrada lagu dilay. 15 Noofembar waa sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay xasuuqii ay ciidamada wayaanuhu magaalada qabri dahar ugu geysteen dhalinyaro maxaabiis ah oo 22 gaadhaysa iyo qaar ka mid ah dadweynihii magaalada. waxay ahayd maalin talaada ah, taariikhduna waxa ay ku beegnayd 15 Noofembar sanadka 2005 markii ay ciidamada wayaanuhu si nacabnimo ah ugu xasuuqeen magaalada qabri dahare dhalinyaro maxaabiis ah oo muddo ay ku haysteen xabsiga magaalada qabri dahare. waa maalin xusuus gooni ah iga mudan oo xaadu iga gubato. waa maalin xiskayga ku abuurta xanaaq sii xoojiya dareenkayga diidan xakamaha gumaysiga. waa maalin sii kordhisa xushmadda aan u hayo xoogga dalka ee xabadda u qaaday xornimadeenni iyo xaqu dirirka jawxo. waa maalin xaasidku ku farxo xabiibkuna ka murugoodo. waa maalin geesigu ka dhiidhiyo fulayguna la dhiidhiibsado. waa maalintii uu ciidda qabri dahare qulqulay dhiiggii qaaliga ahaa ee dhallinyaro curdan ah oo weli cimrigoodu weynaanin. waa maalintii cadow ku wiirsaday curado aan la quudhi karin iyo cududkii halgankeenna. waa maalinta ay xabaal u dheelmadeen wiilashii xulka ahaa ee loo carbiyey xeeladaha dagaal. hase yeeshee inkastoo 15 Noofembar ay xanuunkaasi xambaarsan tahay, haddana waxa ay ka mid tahay maalmaha uu sahaydo dareenka keena diidka ah ee hogaaminaya waddaniga daacadda ah ee nolosha gunnimada ah ka doortay geerida xalaasha ah. waxay taariikhdu sugtay in mar kasta oo gumaysigu kordhiyo cadaadiska iyo dulmiga uu ku hayo dadyowga uu gumaysto uu sii kordho kacdoonka lagu diidan yahay xukunkiisa iyo jiritaankiisa labadaba. waxaa jirta dabeecad ay gumaystayaasha oo dhammi ka siman yihiin oo ah in gumaysto oo dhammi uu fulay yahay. dabeecaddaas ayaana ugu wacan in gumaysto oo dhammi uu isku dayo inuu awood ku muquuniyo dadka uu gumaysto isagoon u kala abayeelin maxaas iyo cidda dagaalka kula jirta. waxaa dhacda inuu mararka qaarkood xeelad adeegsado, haddana mar kastaba siyaasaddiisa awood ku muquunin ayaa buddiga u ah. waxaana sabab u ah malahayga waxa uu isog yahay inuu xaqdarro ku socdo oo dad iyo dal aanu lahayn uu islahaysiinayo, islamarkaasina uu doonayo inuu sidaasi ku manaafacadsado. wuxuu kaloo og yahay in dadka uu gumaysto ayna oggolayn arrintaasi oo ay kollayba ka dagaalamayaan. gumaysiga xabashiduna waxa uu malaha gumaystayaasha kale sii dheer yahay, isagoo xataa ka cabsada dadka reer ogaadenya ee u xidhxidhan. waxaanu doorbidaa in uu xabad la dhaco oo xabaal ku hubsado, ilaan waxa uu og yahay niyaddooda iyo meesha ay taladu uga go'an tahay.
15 November ma aha markii ugu horeysay ee gumaystaha Itoobiya uu xasuuqo dadweyne aan waxba galabsanin oo reer Ogaadenya. waxaa ka horeeyay xasuuqyo kale oo ka dhacay magaalooyin kale oo Ogaadenya ka mid ah, waxaanay u badan tahay in xasuuqyo kale ay ka dambeeyaan mar haddii uu gumaysigu weli dalkeena sii haysto. hase yeeshee xasuuqan iyo kuwii ka horeeyayba ma liiliijin doonaan niyadda birta ah ee dadweynaha Ogaadenya ee qalabka u qaaday sidii ay isaga xoreyn lahaayeen gumaysiga nacabka ee dalkooda xooga ku haysta, waxaanay shidaal u noqon doonaan dagaalada lagu baadigoobayo xorriyadda dalka Ogaadenya. shuhaadadii xasuuqan lagu laayeyna waxa ay taariikhda halganka ka galeen baal dahaba, waxaanay weligooda ku daabacnaan doonaan alaabta qof kasta oo wadani ah oo u dhashay dalka Ogaadenya. dadweynaha Ogaadenya waxa ay xusuusnaan doonaan erayadii ugu dambeeyay ee dhalinyaradaasi laga dhaxlay markii ay ciidamada wayaanuhu qaar dhalinyaradaasi ka mid ah hor keeneen dadweyne si qasaba loogu soo shiriyey garoonka qabri dahare ee ay ka dalbadeen in ay dadweynaha u sheegaan in la khalday. hase yeeshee ay dhalinyaradaasi madashaas ka sheegeen iyagoo weliba qori afkii lagu hayo hadallo dadweynaha ugu baaqaya in ay gumaysiga ka gilgishaan, iyaguna ay dadka iyo dalka dartood u dhimanayaan. በዚህ ፊልም ዙሪያ የሰዓት የክልሉን ባለስልጣናት አስተያየት ለማግኘት ተደጋጋሚ ሙከራ ቢያደርግም አልተሳካለትም። ከአይን ምስክሮች ከመከላከያ አባላትና ከቪዲዮ መረዳት የሚቻለው በክልል ውስጥ ያለው የሰማይ መብት ጥሰት መባባሱንና አካባቢው አሁንም የጦር ቀጠና ሆኖ መቀጠሉን ነው።